kastama hadasho waxay isku soo bandhigtaa iftiinkeeda. Kuwa guulaystay marna ma aha inay naftooda bunbuuniyaan, balse waxqabadkooda ayaa la rabaa inuu soo bandhigo oo hadlo. Haddii aad wada siiso qalbigaaga qof, wuu dhaawacayaa. Wada sii qalbigaaga Allah subxaanahu wa tacaala, isagaa ku toosinaya kuna xoojinaya. halka aan ka soo jeedniyo iyo daruufaha inagu beeran waxaa laga yaabaa in ay saameyn ku yeeshaan naftaada, laakiin adiga ka mas'uul ah qofka aad noqonaysid. Mararka qaar waxaa noloshaada ku soo biira dad gaar ah, kuwaas oo hoos kuu dhiga kuna dhibaateeya, si Allah subxaanahu wa tacaala kuu baro in aad u noqotid iyo in aadan cidna ku tiirsanin aan Allah ka ahayn. Ducada aad samayso kolka aad sujuudsan tahay waa waxa qalbigaaga sida dhabta ah uu rabo. waa meesha kaliya aysan fikradaada ka awood badin karin dareenkaaga. goorta aad u qaadato in adduunyadu ay dhammaanayso, ha isdhibin, kor eeg, kadibna dholcadee, sababtoo ah Allah ayaa mar kale iimaankaaga tijaabinaya. marnaba ha yeesanin naftaada. haddii weynaan iyo xoog waxtaraan maroodiga ayaa ahaan lahaa boqorka xayawaanka, laakiin waxaa ah libaaxa oo cudud iyo cabirba ka yar. guusha dadka kale maaha adiga guuldaradaada ama fashilkaaga. marnaba ha ka xumaanin qof kale guul uu gaaray. isdiyaarin, dadaal badan, doonid joogto ah, dulqaad iyo duco ayaa inta badan sababa guusha. had iyo jeer ku ducayso inaad hesho indho ka arka dadka waxa ugu wanaagsan. qalbi cafiya waxa ugu xun ee lagu sameeyo. maskaxeed maanta wax kastoo xun iyo ruux aan marnaba luminin rumaynta iyo iimaanka rabbigiisa. marnaba ha u ogolaan inuu qof ku liido ama ku dareensiiyo inaadan qiimo lahayn. Allah wuxuu ku abuuray ujeedo cad, Allah ayaana ku karaameeyey.